gudoomiyaha xisbiga xaakimka talada dalka haya ee kulmiye ahna musharaxa xisbigaasi mudane muuse biixi cabdi ayaa agab isboorti soo gaarsiiyey 8 kooxood oo kamid ah kooxaha heerka koobaad ee ka dhisan gobolkani Togdheer. Munaasabad loo qabtay wareejinta agabkaasi laguna furayay wareega xisbiga kulmiye uu qaban doono kooxahani ayaa waxay habeennimadii xalay ahayd ka qabsoontay garoonka Togdheer Football Academy ee magaalada Burco. Abakar Carabi leeyahay gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer oo agabkaasi sportis uu soo wakiishay gudoomiye Muuse Biixi Cabdi ayaa tilmaamay in xisbiga kulmiye uu hiiliyo hoob la garab taagan yahay dhalinyarada waxaana gudoomiyuhu sheegay in aan noqon doonin tii ugu horeysay halkan garoonkan Togdheer Stadium ee xaafadda Balaasa waxaynu ugu talagalay inaan wareeg ka furno wareega waxaan ku gudoonsiin doonaa 8 kooxood wareega dhamaadkiisana kooxaha kaalinta koowaad iyo labaad gala inaan koobka gudoonsiino deeqdan alaabta ee aan gudoonsiin doono kooxaha garoonka ka ciyaari doona wareega ka qayb gali doona waxa noo soo wakiishay musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye isla markaana gudoomiyaha xisbiga mudane Muuse Biixi Cabdi anagoo siyaasadda xisbiga ee dhiirigelinta dhalinyarada dalka ka qayb qaadanayna oo fulinayna barnaamijka xisbiga siyaasadiisa ee ah in dhalinyarada la dhiirigeliyo in sportska la dhiirigeliyo in xisbigu mar walba ka warhayo dhalinyarada sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi iyo gudoomiye ku-xigeenka koobaad iyo labaad ee xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale xubno kamid ah guddiga fulinta xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer waxaana dhamaantood bogaadiyeen gudoomiyaha xisbiga kulmiye sida uu dhalintiisa ugu heelan yahay waxaana la dardaarmeen dhalinyaradan tartankan oo idin qabtay xisbiga kulmiye annaguna aan wakiil uga nahay kuwa la doonaya inay sare u soo qaadaan oo soo celiyaan sharaftii iyo karaamadii uu gobolku lahaa waa idinka waa uga mahadnaqaynaa runtii marka hore gudoomiyaha xisbiga kulmiye isla markaana aan musharax Muuse Biixi Cabdi oo qalabka halka yaala isteeda kooxood loogu talagalay koobka iyo direyska uga mahadnaqaynaa runtii inuu dhalinyarada gobolka inuu qalabkan soo gaarsiiyay isteeda kooxood halkan la gudoonsiin doono waxaan u sheegaynaa ee ka qayb gali doona koobkan inay koobkaasi uu ku bilowmo waxaan idinku dhiirinayaa inaad kor soo qaadaan ciyaarihiina annaguna waxaanu ballan qaadaynaa inaanu idin garab taagnaano mar walba iyo goor walba iyo goob walba waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweynaha oo had iyo jeer isku hawla inay dhiirigeliyaan dhalinyarada runtii waxa weeye waxa xusid mudan in gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye ay tahay ay ka go'an tahay inuu dhalinyarada dhiirigeliyo maadaama waxa weeye ay bolisiga iyo siyaasadda cad xisbiga kulmiye ku wajahan dhalinyarada way caddahay waa Cabdisalaan Axmed Cawad Cabdi Jermani Bulsha TV Burco.